Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhowaada saaxiibada Maashiil Media. Muuqaalkeenu wuu ka duwan yahay muuqaalkii hore, waxaana muuqaalkan ku soo qaadanaynaa gabar ka xaqiijisay kagana rumaysay ahdaaftii iyo yoolashii ay ka lahayd nolosha. Haddaba daawade, intaan muuqaalka bilaabin waxaan ku weydiinayaa, shakhsi indhool ah, dhagoolna ah, yoolasha uu nolosha ka leeyahay ka xaqiijin karaa? Haddii ay jawaabtu tahay may, haa wuu ka xaqiijin karaa yoolka uu shakhsigaasi nolosha ka leeyahay. Haddii aadan weli ka mid noqon saaxiibada Maashiil Media, nagu soo biir. Magacaygu waa Ayuub Cabdiqaadir. Ku soo dhowow muuqaalkeena maanta. Inaad ahdaaftaada kaga rumaysaa waxay kaaga baahan tahay go'aan iyo dadaal joogto ah si aad uga dheeraato wax walba oo dib kuu dhigaya. Helen Keller waxa ay dhalatay sanadii 1880kii, waxaana ay ku dhalatay gobolka Alabama ee dalka Mareykanka. Helen kumay dhalan indho la'aan iyo dhago la'aan, balse waxaa la soo daristay yaraanteedii xaalad ay dhakhaatiirtu ku sheegeen xanuun qandho ah. Xanuunkaas oo muddo hayay waxa ay ku weyday maqalka dhagaheedii iyo aragga indhaheediiba. Helen aabbaheed iyo hooyadeed waxa ay u geeyeen Dr. Julian Jellison oo ku takhasusay xanuunada indhaha iyo dhagaha iyo cunaha si uu u dabiibo gabadhooda. Tani waxa ay ahayd markii ugu horeysay ee Helen loo diro habraac waxbarasho ee xirfadeed. Tallaabadan waxa u bilowday hooyadeed oo mar walba garab taagnayd gabadheeda, dhiirigelinaysayna. Dr. Julian waxa uu u sii gudbiyey doorkii la shaqaynayay ee Alexander Graham Bell oo qaabilsanaa carruurta dhagoolayaasha ah. Helen hooyadeed iyo aabbaheed waxa ay u soo bandhigeen Perkins Institute of the Blind in ay wax ka barato iskuulka oo ay dhigan jireen dhagoolayaasha, waxaana Helen halkaas ay ka heshay waxbarashadeedii rasmiga ahaa. Waxaana ay baratay sida ay farta indhoolayaasha wax loogu qoro looguna akhriyo. Helen halkaa waxa ay ka heshay macalimadeedii qaaliga ahayd ee Anne Solfien, oo ahayd macalimad 20 sano indho la'aan ahayd. Anne Solfien waxa ay baratay Helen sida loogu xiriiro calaamadaha gacanta. Inkastoo Helen ahayd dhagooled, ma aysan rajo dhigin hamigii iyo yadidiiladii ay ka lahayd nolosha. Helen muddo yar waxa ay la qabsatay in ay qoyskeeda la xiriirto. Laga soo bilaabo sanadii 1888kii bishii Maarch, Helen waxa ay go'aansatay inay dhigato machadka indhoolayaasha ee Perkins, waxaana garab taagnaa labadeeda waalid iyo macalimadeeda qaaliga ah ee Anne Solfien oo mar walba siinaysay dhiirigelin. Helen waxa ay ahayd qofkii ugu horeeyay ee indhool ah, dhagoolna ah ee ka qalin jabiya shahaadada Bachelor of Arts. Helen waxa ay qortay buugaag ay ka mid yihiin buug ay kaga hadlayso nolosheeda, The History of Life. Sidoo kale waxa ay lahayd hadallo xigmad ah, waxaana ka mid ahaa hadalladeeda xigmadda ah: waxyaabaha adduunka ugu fiican uguna quruxda badan lama arki karo ama xitaa lama taaban karo, ee waa in laga dareemaa qalbiga. Inkastoo adduunku rafaad badan yahay, haddana waxaa ka buuxa adkaanshihiisa. Markuu albaabka farxadda xirmo, mid kale ayaa furma, laakiin waxay fiiriyaan waqtiga aad u dheer albaabkii xirmay oo aynan arki karin midka inoo furan. Waxa aan ku raaxaysan karno weligeen ma waayi karno. Wax kasta oo aan si qoto dheer u jecelnahay qayb ayay naga noqdaan. Socodka saaxiibkaaga mugdiga ku jira ayaa ka wanaagsan inaad ku socotid iftiinka. Rajo wanaag waa iimaanka kuu horseedaya guul. Waxba lama qaban karo rajo la'aan iyo kalsooni la'aan. Insha Allah, saaxiibada Maashiil Media, waa inoo iyo muuqaalkeenan muuqaalka xiga. Fadlan haddii uu muuqaalku ku cajabiyey, noo saar subscribe, lana wadaag asxaabtaada. Commentigana noogu reeb muuqaalada aad xiisaynayso ee aad jeceshahay inaan soo diyaarino.